kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee saaka ee qodobada aan idinkugu helna waxaa ka mid noqonaya maamulka Axmed Madoobe oo ka dhaweeyay in 15 maalmood gudahood ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga saarayaan deegaanka Raskamboni saaka xaaladda Raskamboni waa sidee maxaase ka cusub yaa si buuxda ammaanka Raskamboni hadda gacanta ugu haya ciidamada dowladda mase kuwa maamulka Jubbaland xog iyo sidoo kale faahfaahin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqonaya halkee ayay ku dambeeyaan ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwii gorgor iyo sidoo kale haramcad ee labadii maalmood u dambeeyay ku sugnaa deegaanka Raskamboni iyana xog ayaan idinkaga haynaa waxaad kaloo daawan doontaan oo qodobadeeda ku jira Jubbaland oo si buuxda u sheegtay in guud ahaanba ciidamada dowladda ay kala wareegtay deegaanadii markii hore ay ku dagaalameen wada hadalkii Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia oo hadda meel gabagaba ah maraya iyadoo ay suuragal tahay in guud ahaanba Ethiopia ay hesho bad isla markaana heshiis dhinaca dowladda markaana la gasho Erdogan oo rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadalka labada dhinac qodobada ay wixii ugu soo kordha ayaa saaxiibayaal saaka ku daawan doontaan isku soo noqod wanaagsan mar kale saaxiibada qiimaha badan wararka daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aynu ku bilaawno wararka saaka aanu ka helayno deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda deegaankaasi ay degan tahay kadib shalay dagaal xooggan oo laba jeer oo kala duwan dhexmaray ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland gacanta deegaanka Raskamboni hadda waxa ay ku jirtaa ciidamada maamulka Jubbaland oo iyagu dhinacooda soo bandhigay sawirro muujinaya in goobta ay ku sugan yihiin waxa ay sheegeen in si buuxda gacanta ay ugu hayaan isla markaana ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay u kala jabeen dhowr qayb kuwa dhinaca xuduudda Kenya iska dhiibay sida lagu baahiyay sawirro iyagu baraha bulshada laga dhex arkay halka qaarka kale Jubbaland ay sheegteen gacanta ay ku hayso iyadoo ciidamada qaybta saddexaad aan la ogeyn sida maamulka Jubbaland ay sheegtay halka sida rasmiga ah ay ugu dambeeyaan 15 maalmood ayuu Axmed Madoobe u qabtay ciidamada maamulka gaar ahaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya aan iraahdo in Jubbaland ay isaga baxdo hadii kale jawaab cad ay heli doonto taas oo ugu dambeyn shalay ilaa xalay ka dhabowday hadalkii Axmed Madoobe oo ahaa in ciidamadaasi ay yimaadeen deegaan aysan aqoon isla markaana ay ku ciyaarayaan dab sida uu sheegay xilliga hadal dhinacyo badan taabanaysa u jeeday Axmed Madoobe waxa uu tilmaamay in iyagu ay yaqaanaan Raskamboni sida loogu dagaalamo maadaama Axmed Madoobe markii uu ka tirsanaa al-shabaab iyo sidoo kale xisbul islaam xilligaasi uu isaga aaga Raskamboni uu ahaa shakhsiga ugu weyn oo qaabilsan halka isla markaana dhowr sano ka soo dagaalamay Madoobe waxa uu sheegay in mar walba iyagu ay ka go'an tahay sidii guud ahaanba Jubbaland loo nabadeyn lahaa dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyay inay ku gardarootay dhulka Jubbaland isla markaana ay heli doonto jawaab cad balse Axmed Madoobe ayaa markaan u muuqanaya in gacanta ay u gashay deegaanka Raskamboni iyo sidoo kale garoonkii macmalka ah ee halkaasi ku yiilay ciidamada dowladda 3 toddobaad u dambeeyay garoonka Raskamboni ee macmalka ah waxa ay ku daabuleysay diyaarado ciidamo fara badan sida kuwaas oo halkaasi la geynayay gorgor iyo sidoo kale ciidamada haramcad ayay iyagu ka wada tirsanaayeen ciidamada halka la geynay balse laba toddobaad kadib Axmed Madoobe oo hadlay waxa uu sheegay in 15 maalmood gudahood uu kaga saarayo saraakiil oo hadashay maamulka Jubbaland waxay sheegeen in xaaladda saakay ay tahay mid degan isla markaana si buuxda gacanta ay ugu hayaan Raskamboni sidoo kale deegaanada ku sugan inkastoo aan la ogeyn xaaladda rasmiga ah ee dhinaca kale markaan u eegno duqeyn ayaa la soo warinayaa in xalay dhowr goobood oo ciidamada maamulka Jubbaland ay fariisin u ahaa la bartilmaameedsaday gaar ahaan diyaaradaha drone-iska loo yaqaano maamulka Jubbaland arrinka wali faahfaahin rasmi ah kama una bixin dhinaca kale markaan u eegno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadoo war-saxaafadeed ay saqdhex xalay soo saartay waxay ku sheegtay in xeelad dagaal Raskamboni ay uga baxday sababtana waxay ku sheegtay in aysan ogoleen dowladda federaalka Soomaaliya in dhiiga ciidamada dowladda iyo sidoo kale guud ahaan ciidamada Soomaaliyeed iyagu halka ay ku dhaxmarto waana sababta keentay ayay tiri dowladda federaalka Soomaaliya in ciidamada si nabad ah halka ay uga baxaan balse dhinaca Axmed Madoobe iyagu waxa ay sheegeen in si qasab ah looga saaray aaga Raskamboni ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dowladdu waxa ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay in iyadu ay ilaalinayso dhiigga shacabka Soomaaliyeed in aan lagu dagaalamin deegaanka Raskamboni taas oo keentay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi baneeyaan xeelad dagaal ayay saraakiishu ku sheegeen in halkaasi looga baxay inkastoo mar walba la filan karo in Raskamboni uu ka dhaco dagaal aad xooggan
madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in maamulka Axmed Madoobe meesha laga saaro dhowr iyo 10 sano oo xiriir ah oo halkaas uu maamulayay waana sababta keentay in ciidamo aad u fara badan la geeyo deegaanka Raas Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose dhaqdhaqaaqyo badan ayaa hadda waxa ay ka soconayaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin kale oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose halkaas oo la warinayo in ciidamada maamulka Jubbaland saaka si toos ay kaga bilaabeen Jubbaland hadda waxay isku diyaarinaysaa inay isku faafiso dhulka kale ee iyagu dhinaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya halkaas oo loo badinayo in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin balse wixii ku soo kordha wararkaasi saaxiibayaal kuwa soo aadan ayaad ku daawan doontaan markaana haddii aanu fiirino magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa ka soconaya shir la isugu keenay madaxda Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa iyagu waxay isugu yimaadeen magaalada Ankara markoodii saddexaad laba shir oo halkaas ka dhacday ma aysan ahayn foolka fool balse shirkan waxa uu noqday mid waji ka waji ama foolka fool la isugu imaanayo isla markaana waxa jira laga wada hadlayo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay natiijada ka soo bixi karta wada hadalka madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo isagu muujinayay kalsooni uu ku qabo in labada dhinac u heshiisiyo ayaa waxa la arkayay sawirro gacanta uu ka haysto ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligaas oo dhammaantoodba ka muuqanaysay qanaaco sida ay isla mid ah sawirkii ugu yaabka badnaa xalay baraha bulshada dhex wareegaya waxa uu ahaa midkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh ay is salaamen iyagoo gacmaha isku dhagan qoslayana isla markaana muujinaya dareen ka duwan kii hore dadka loogu sheegi jiray oo ahaa in Soomaaliya sidoo kale Ethiopia ay cadow yihiin markaan waxaa muuqanaysa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu u dhawaanayo dhinaca dowladda Ethiopia isla markaana uu dhabeynayo ballanqaadkeeda lama oga in dowladda dalka Ethiopia iyadu ay si cad u sheegi doonto in ay ka laabanayso heshiiska ee la gashay Somaliland isla markaana ra'iisul wasaare Abiy isaga halkaas uu ku cadeyn doono shir jiraayad oo la filayo inuu qabto in shir uu ahaa heshiiskii Somaliland uu la galay mid aan saxayn balse dhinaca kale markaan ku eegno Ethiopia mar walba waxay doonaysaa bad waxaana lagu qanciyay sida Turkigu iyadu ay cadeysaba gaar ahaan Rajab Tayyip Erdogan in Ethiopia ay muhiim u tahay in ay marin badeed hesho taamicneedu waxa ay tahay in mar walba heshiiska uu noqon doono in Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia ay ku heshiin doonaan in Ethiopiaanka bad la siiyo lama cadeyn ilaa hadda halka sida rasmiga loo qorsheynayo in dowladda dalka Ethiopia marin badeed la siinayo balse ma noqon doonto sida xogta aanu ku helayno deegaanada Somaliland gaar ahaan Saylac oo markii hore iyadoo la qorsheynayay in 20 kilomitir isku weera dhinaca badda laga siinayo dowladda Soomaaliya ayaa hadda iyadu waxay u muuqanaysaa mid guud ahaanba soo gabagabeyn doonta cabsidii tirada badneed ee laga qabay in gobolka Geeska uu ka dhaco dagaal u dhaxeeya Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya hadda waxay u muuqanaysaa in xaaladda ay ka soo yara roonaanayso sidii hore Rajab Tayyip Erdogan oo dana badan ku qaba Soomaaliya gaar ahaan heshiisyadii dhinacyada badnaa ee uu la galay Soomaaliya ayaa waxa uu fursad u arkay in Soomaaliya wax dagaal ah aanu ka dhicin haddii uu ka dhacana waxa uu weyn doonaa wax walba oo faa'iido ah oo uu qorsheynayay in Soomaaliya dhowrka sano ee soo aadan isaga uu ka helo waxa uu qorshihiisu yahay dowladda Turkiga in iyadoo raalli la isaga wadayahay labada dhinac la heshiiyo marin badeed Ethiopia la siiyo Erdogan dhinaca kalena dalka Turkiga uu kaga faa'iideeyo kheyraadka badan ee dalkeena Soomaaliya yaala Erdogan markaanu eegno faa'iidooyin badan ayuu ku qabaa dowladda dalka Ethiopia waana sababta keentay in mar walba uu ku qanciyo dowladda Soomaaliya in ay kala xaajooto sidii guud ahaanba arrinta loo dejin lahaa isla markaana bad Ethiopia ay u heli lahayd shirka oo weli natiijadiisa aanu soo bixin ayaa waxa lagu wadaa in saacadaha ugu soo horeeya maantaba shir jiraa'id si wada jira loo qabto isla markaana la soo saaro war ku aadan go'aanada rasmiga ee la gaaray balse wixii ku soo kordha saaxiibayaal wararka soo aadan ayaad ku daawan doontaan mahadsanidin